dadka madowga ah ayaa in badan oo ka mid ihi marka ay u dhoofaan wadamada shisheeye waxay kala kulmaan dhibaatooyin iyo caqabado kala duwan. Dhibaatada ugu weyn ee ay la kulmaan ayaa ah takoor lagula kaco, kaasoo mararka qaar gaadha ilaa heer xadgudub loo geysto naftooda, iyagoo waxay galabsadeen jirinka sokow inuu midabkoodu madow yahay. Falalka ugu qadhaadh uguna arxandarrada badan ayaa waxa ay ka dhacaan wadamada carabta, iyagoo dadka madowga ola dhaqma sida xayawaan kale. Ururada u dooda xuquuqul insaanka iyo shakhsiyaadka u dhaqdhaqaaqa la dagaalanka midab takoorka iyo haybsooc ayaa warmurtiyeedyada ay soo saaraan waxa ay walaac ka muujinayaan falalka bini'aadamnimada ka baxsan ee lagu beegsado dadka maqaarka madow, taasoo cirka isku sii shareeraysa waayadan dambe. Duni ku faanaysa ilbaxnimo, horumar iyo isdhexgal. Wadamada carabta ayaa mar walba layn kore kaga jira liisaska xuquuqul insaanka ee ay soo saaraan ururadani, taasoo aanay jirin cid ka hadasha oo ka dooda. Haddaba maxa ay tahay sababta ka dhigta wadamada carabta wadamada ugu cunsuriyada badan ee maxjuuba u dhaqaaqa xuquuqul insaanka kana tirsan hay-adda qaramada midoobay ee Human Rights ayaa maxjuub oo ka hadlaysa gabdho buuxaafiyey albaabka hore ee safaaradda waddanka Itoobiya, kuwaasoo intooda badan ahaa shaqaale guri, shaqadoodina laga soo ceeriyo, intooda badanna loo diiday xuquuqdii ay lahaayeen. Ayaa waxay inay arrimahan iyo kuwa lamidkii muujinayaan wejiga dhabta ee wadamada carbeed iyo cunsuriyadda taalla. ayaa maxjuub ayaa intaa waxay ku sii dartay inayna falalka lagula kacayo gabdhahani ahayn mid ka soo fulaysa shakhsiyaad, balse ay tahay dhaqan bulshada ku faafay oo meel laga soo qabta. Maxjuub ayaa ku tilmaantay wax laga muddo dadka Itoobiyaanka iyo dadka Suudaaniyiinta ayaa inta badan waxay la kulmaan waddanka Lubnaan dhibaatooyin iyo caqabado kala duwan, kuwaasoo ku salaysan intooda badan midabkooda madow. Waddanka Lubnaan ayaa kaalinta labaad ee caalamka galay waddanka ugu cunsuriyada badan. Kuwan halkana Masar ayaa isna dhibaatooyinka madow lagula kacaa isugu jira dil, kufsi iyo dhac, kaasoo aanay jirin ka dooda ama ka hadashay, kaasoo aanay cidna ka hadlin, iyadoon cabashada dadka iyo qayladhaantooda cid jala qusinin. Muuqaalkan waxa uu muujinayaa il madow ah oo u dhashay waddanka Suudaan oo ay xadgudubyo kula kacayaan dhalinyaro waddan galatay waddanka Masar. Sidoo kale muuqaalkan kale ayaa muujinaya dhibaatada ku haysata dadka madowga ah waddanka Masar. Waddanka Masar ayaa baryahan dambe waxaa soo badanayay xadgudubyada lagula kacay dadka madowga ah, kuwaasoo cirka isku shareeray. Wadamada carabta ayaa wadamada ugu cunsuriyada badan caalamka, iyadoo kaalinta labaad ee caalamka uu ku jiro waddanka Lubnaan, halka waddanka Masar uu ku jiro kaalinta saddexaad.